Professor Ahmed Ismail Samatar ayaa mar kale si diiran loogu soo dhaweeyay dalka Netherland. Xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay magaalada Rotterdam ee dalka Netherland. Waana markii labaad ee Ahmed Ismail Samatar ay si weyn jaaliyadda Somaliland ee dalka Netherland u soo dhaweeyaan aqoon-yahanka. Professor Samatar ayaa sanad walba socdaal ku soo mara dalka Netherland kana bixiya lecture jaamacado ku yaala dalkan qaarkood. Jaamacadahaas oo ay ka mid tahay jaamacadda ku taala magaalada Leiden. jaaliyadda Somaliland ee dalkan Holland rag iyo dumar waayeel iyo waxgarad xubno ka tirsan axsaabta qaranka iyo mas'uuliyiin ka socda jaaliyadda Somaliland ee Belgium dadweyne fara badan oo ay qaarkood ka kala yimaadeen dhammaan gobolada dalka Netherland ayaa si diiran u soo dhaweeyay Professor Samatar. waxa ugu horeyntii halkaas ka hadlay Maxamed Yuusuf oo ka mid ah guddiga qabanqaabada kulankan iyo ururka Nomad isagoo ku amaanay professorka sida wanaagsan ee uu ummadiisa maanta ula tashanayo waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa weeye Axmed wax horta waxay nagu yar waqtiga nagu yar laakiin hadal dheer baan caawa soo diyaar garoobay marka hadalku waan soo koobaya hadii la yiraahdo Axmed saad u tihiin nin caawa halkan idinku baraya maaha waa nin aad garanaysan waa nin marathon dheer oo siyaasadeed Axmed ku jiray oo soo galay marathonka Axmed wuxuu ku tagay ilaa dawladda ay mushaarka Soomaaliya oo sidii balliba kale waxaan meesha ku hayaan aad soo aragtid Axmed markuu arkay ee uu la soo arkay uu xeeradii gunteedii soo taabtay wuxuu halkiina ku nabad galanay iska soo noqday wadankiisa ku soo noqday soo dhaweynta iyo isxogoreysiga Professor Samatar aqoon-yahankeena qaaliga inaynu halkan ku soo dhaweyno maaha markii uu horeysay sanadkan gudihiisa waa markii labaad ee aan nasiib yeelano inuu noo yimaado waxaana ahaa dadkii in badan markii uu ina ka maqnaa dhegta hadalku sheegayo oo kasta dhegta u dhigi jiray waxaan ahaa oo kale ka mid ahaa isaga iyo qaar kale oo ku jiroba raggii mar kastaba kuwii tabaniyay in ilaahay dalkoodii hooyo ee Somaliland ay dib ugu soo noqdeen ducadaana ilaahay dhankiisana Ahmed Ismail Samatar oo hadal dheer halkaas ka jeediyay ayaa si weyn uga warramay xaaladda iyo halka ay Somaliland maanta marayso iyo tallaabooyinka mustaqbalka dhow jamhuuriyadda Somaliland looga baahan yahay in ay siyaasiyiinteeda iyo ummadeeduba yeelaan وديسيga jooga maxaan ku dhahay bor iyo barasaabka ceerigaaba fadhiya iyo askariga maxaan ku dhahay korneelka jooga maxaan ku dhahay laascaano jooga iyo hargeysa DG-ga fadhiya iyo Ahmed Maxamed Maxamuud madaxweynuhu iyo dhamaantood shaqaday qabanayaan every day waa in laga dhandhansadaa wadan diska waa in laga dhandhansadaa oo laga arkay shaqaduna inay every day socoto gunta hoose jiridu ay ku taagantahay xididada hoose ay yihiin dad is ogol oo is caashaqsan oo taariikh isku xidhay oo meel fog ku socda inay noqoto waxa la joogaa waqtigii Somaliland la dhisay baa la joogaa lamana dhisi karayo dadkaygu meel ay joogaan ba haddana isku tiirsanayn oo meel wada socon lama dhisi karayo jaaliyadda Somaliland ee dalka Netherland oo ay weheliyaan xubno ka tirsan jaaliyadda Belgiumka ayaa sheegay sida bulshooyinka Somaliland guud ahaanteedba ay u soo dhaweeyeen Professor Ahmed Ismail Samatar si leeg in ay ugu soo dhaweynayaan dhexdooda iyo dalka Netherlandba